muqdisho oo maalmihii la soo dhaafay jawigeeda ahaa mid aan nabdooneyn ayaa gashay galabta jawi xasiloon kadib markii xarunta golaha shacabka gaar ahaan baarlamaanka hortiisa uu kaga dhawaaqay madaxweyne Farmaajo in markaasi arrimaha doorashooyinka iyo ammaanka uu ku wareejiyay ra'iisul wasaare Roble qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho ayaa arrinkaasi soo dhaweeyay hase yeeshee waxa ay baaq u jeediyeen ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo markaasi loo dhiibay hoggaanka doorashooyinka iyo ammaanka waxay ka codsadeen in markaasi uu qabto doorasho xasiloon oo markaasi aanu ku daadan dhiig dambe aad iyo aad aan ku faraxsanahay maadaama shacabka Soomaaliyeed ay maanta maartay qalqal badan iyo waxyaalo badan oo maartay dhibaatooyin ay dareemayeen oo mar walba islaayeen ma bariya barakaciisin caawma dagaal bilaaban doono wax walba ay ku fikirayeen oo maanta maartay madaxweynaha hadal fiican ka soo yeeray aad iyo aad u soo dhaweynayna madaxweyne Farmaajo sida maartay geesnimada leh oo iskaga wareejiyay ra'iisul wasaarahan waxaan leenahay waa inuu ka shaqeeyaa danta maartay ummadda Soomaaliyeed inuu san maartay sida hadeertan ay dhacday qalqalka magaalada ka dhacay oo kale aysan dhicin mar dambe waa maasantii nation media madaxweynaha tanaasulka uu sameeyay aad iyo aad ugu maasannahay haddaanaan shacabka Soomaaliyeed waxaan u rajaynaynaa guul inuu mar labaad noo soo noqdo Farmaajo aad iyo aad u taageersanahay waxaan leenahay mudan madaxweyne noo soo dhawaad mar labaad iyo mar saddexaad xaqiiqatan madaxweynaha waa waxaan ka filaynay inuu sameyn doono tanaasulkaasi sababtoo ah halkudhigga uu nagu soo galay ayaa waxay ahayd danta dadka iyo dalka marka maadaama wax walba ay adkaadeen xaqiiqatanna golihii shacabka awoodda ay xaqa u lahaayeen siyaasadeed uu siiyey ay socon waayeen ay ka soo horjeesteen dad yacni mas-uuliyiin ah sidaan ognahay dad siyaasiyiin Soomaaliyeed ah oo aan la garanaynin meeshay wax u wadaan maadaama ay ka soo horjeesteen inuu asaga u tanaasulo dadkii sababtoo ah bil Ramadaan ayaa bulshada dhexdeeda la isku xabadeeyay ayaa bulshada la barakiciyay markii intaas dhibaatadaas ay sii daba dheeraan lahayd inuu u tanaasulo bulshada Soomaaliyeed waan soo dhaweynayaa inuu go'aankaas qaado doono madaxweyne Farmaajo way rajaynayaan waayo waan ogeyn waa shakhsi aad u tanaasul badan oo marar badan ka tanaasulay waxyaabo badan oo caqabado badan oo ku yimid doorashooyin ka tanaasulay kulama ay suurta gali weysay go'aankii awoodda shacabka haddaan annana ku siiyay kulama ay suurta gali weysay oo qalaasay dhicin madaxweyne Farmaajo maadaama uu ka tanaasulo go'aankaas oo doorashadii u celiyay maxaa la ku wareejiyay wasaaraha waan soo dhaweynaynaa madaxweyne Farmaajo tanaasul badan waxaan leenahay waxaan rajaynaynaa inuu mar labaad soo laaban doono ayaan rajaynaynaa كله بحي تاس سارة يا حي عوض بريح كده بيا ودي قول جونا مركا ضد صور فلينا وحن حي وجدنا يا أنا حالة الديان ضل كان دور شقة في عوضة كده marka laga soo tago shacabka magaalada Muqdisho hadalkooda waxa kaloo jira in wali dhufeysyo ay ka sameeysan yihiin magaalada Muqdisho oo markaasi ay ku sugan yihiin ciidan ka godoosana muddo kornintii hore baarlamaanka Soomaaliya ay ugu sameeyeen madaxweyne Farmaajo meelaha wali ciidamada mucaaradka ay ku sugan yihiin waxa kamid ah degmooyinka Hodan Howlwadaag Cabdicasiis Kaaraan iyo Yaaqshiid mana la oga goorta rasmiga ah oo ay faarijin doonaan dhufeysyadii ay ka sameysteen magaalada Muqdisho ciidanka militariga balse ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa laga dhowrayaa inuu markaasi ku guuleysto xalinta waxa keenay in ciidan Soomaaliyeed ay dhufeysyo ka sameystaan magaalada Muqdisho Maxamed Yaxya Jiinow warbaahinta Nation Muqdisho